Mawduucan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee hamigaaga u sarreysiin karaysaa. Qodobka koowaad, Ilaahay wuxuu jecel yahay meelaha sarsare, ma jecla meelaha hoose. Markasta waa Ilaahay wuxuu jecel yahay qofka hami sare leh, wax sare ku hamiya, hawlkar ah, firfircoon buu Ilaahay jecel yahay. Qodobka labaad oo ah go'aan iyo sugnaan yeelo. Qodobka koowaad oo ah inaad go'aan yeelato, go'aankana aad ku sugnaato. Go'aanku waa waxyaabaha koowaad oo kamid ah waxyaabaha wuxuu kamid yahay gaarsiiya dadka guul iyo hadaf. Inaad go'aan yeelataa waxay ka dhigan tahay inaad wax ku gaari karayso result. Waxaad ku hamidaa xaalka dadka aad hogaamiyaha u tahay ama aad hogaaminayso. Waxaad ku hamidaa inaad dadka aad hogaaminayso aad si wacan oo cadaalad aad waxooda u siiso, xaqooda aad u siiso. Waxaad ku hamidaa dadka aad u cadaalad samayso, dadka aad hogaamiyaha u tahay. Waa inaad u cadaalad samaysaa, taana Ilaahay wuu jecel yahay. Waxaad eegtaa waxa aad gaadhay iyo waxa ku haray aad gaari doonto aad rajaynaysid. Maxaad gaadhay iyo maxaad rajaynaysaa waa inaad eegtaa. Intaas inoogu eegaya maanta.